horta waxaan idiin sheegayaa shacbiga reer Soomaaliland baan la hadlayaa anigu xukuumaddan indhaha la hadli maayo shacbigaan la hadlayaa shacbiga reer Soomaaliland waxbaa la wadaa waxaa la wadaa dadka la gelinayaa oo dhagahayga ku soo dhacdhacda reer berbera way sheegteen ama Ciise Muuse berberu sheegtay sida la yiraahdo waa sida berbera way badantay deegaankeedu laakiin saacida la targetka ah ee la sheegaya waxa weeye Ciise Muuse berbera sheegtay shalayba waa la lahaa waxaan u idin sheegayaa maalintii aslamta la soo galayay aynu dalka qabanaynay waxa la yiri markii daflo berbera lagu horeysay labadii ciidan ee reerku lahaa baa la yiri ugu horeeya lixaad iyo 11 bay ahayd iyaga ugu horeeyay horta ciidanka aslamta maxaa taa loo lahaa waa degaan mar walba iyadoo marka la qabtay meeshii oo qadada la karsanayo ayaa ciidanka kale aslamta iimaanayo horta labada ciidan ee jafiyay waxaan sallallahu xaafadan baa waxa weeye hadaba kuwii sida ahaa ee adeer holaca u galay ayaa de wali degaanada joogada meesha maanta in la yiraahdo dabadeetana degaan bamba tiidin ama idinka sheeganaya horta xaq looma leh walidi sheegay qaabkan anigu ninka maxamuud xaashaan toos u la hadlaya maxamuud xaasho golahan ku wada jiray nin aan aqoon badan lahayn qabyaalad yaqaan buu ahaa waa ninka oran jiray liis buu soo samaystay intaasoo subeera wala ayaa dhijiya intaasoo subeera wala ayaa wasiira intaasoo subeera wala golahan fadhiya anigu markaa horta ninka maanta madaxtooyada inoo jooga waa ninka ku cabaysnaa qabiil marka horeba waan idin sheegayaa waxaan idin sheegayaa colaada markaa horeba uurka kaga jirtay ayuu maanta madaxtooyada inoogu fadhiistay xirsi bilaash baynu maageen nin balaaran buu ahaa salla calee oo dee wax kala wada dee wax kala socdaan dee waxaan idiin sheegayaa shalay toqoryaalu ka hadlaayay waa xaafadiisii dowladnimada horta waxaan idiin sheegayaa reerkan la haystaa adeer waa naqaanaa dowladnimada dowladdana buddigeedu Soomaalilandow haddaydaan nagaga masuugayn annagaan lahayn berberana waxaa la wareejiyey 19 baa la wareejiyey markii dambe cigaalba 3 lagu wareejiyey waxaa naga jooga 2,000 kuuliyo cid walba leh iyo maareey hadba madaxweynaha dalka yimaadee qabsada ayuunbaa dekedaa maamusha inta yadaasu xildhibaanadii baanu nahay nin guri leh ma jiro nin guri ka dhistay Soomaaliland oo inta yadaasu kuraan ku wada jira waan idin sheegay adiga mooyaan miya adigana dee waxa ku dhisay beesha ku dhisay waa mujaahidkii baa wallahi baan jilal looga qaadin doono inta yada kale waa sidaa haddaanu qabsanay annagu fooqabaan wada yeelan leh rag baa iminka soo galay wasiiraaho nin waliba fooq buu leeyahay maxamuud xaashow adoo waxaasoo dhan ku hadlay oo impeachment keenay oo cigaal joogo oo uu xabad ku baxsaday ayaanu cigaal ogeysiin magaaladiisii iyo dadkiisii in la impeach garaynayo gobonimadaas sidaa kalsoonidaas sidaa madaxweynenimadaas sidaas markii dambe adoo waxaa ku hadli jiray ninkii ee reerkaaga iyo ilaa South Africa ay kala laalaaleen ninka in cigaal ku geeyay ee safarkii aad ilaa halka imika ku tagtayna anigu waxa ninka ku baxyeen cigaal buu waan ku sheegayaa ceebtaadna ma ceebtaa yaqaan maantana waxaad u bu'aysaa sidaa shalay shirka wuxuu ka yidhi shirarka wanaagsan ee sidan oo kale ah hadda waa xafadiisa yaa salla calee waa raalli baanu nahay shirarka wax lagu kala faquuqayana ma ogolin shalay baan shiro dubur baan ku shiro nabadgelyo ku shiro salla calee halkaasuu joogayo xilligaa dadkiisu maba imaba Soomaaliland halka laga maalayana berberaha dalka waxa ugu horeeyay la wareejiyay berberaha waxaan leeyahay adeer horta cudurka iska saarsan cudurkii baad madaxtooyada la gashay maxamuud xaashow wallaahi baanay taadu ku soconayn waa reer baad target ku tahay mana dhacaysee iska saar cudurka iska wareeji sal calee ma maamuli kartid taas waa qodob weyn
talabaad waxaan idiin sheegayaa horta ilaahay wuu kala yaqaanaa dadkiisa meesha ku habboonna cidda ku habboon buu dhigaa waxaan qabaa hadday berbera cid kala joogi lahayd kun kontarool baa samaysmi lahaa ninka reer berbera waa idinka arkay markaa dariiqa soo martaan waa ninkaa madow ee gubtay ee mayosaxaa sidaa le gawaadhida hadda malab baa sidaa u hormaraya malabkii doocaan cid wax laga qaaday mugti ilaa xabashaa marta weligay kumaanaa shuftayn dariiqa wallaahi bilaahi tallaahi beel kastoo somaliland ka mid ah inaan sidaa yeesheen wax allaaliya wixii intifaacaanu ka heli jira xilligii faqashta hadday xerooyin adhi tahay hadday gaadhi daabul tahay hadday bakhaaro tahay hadday clearance tahay wixiiba reer somaliland iyagaa la wareegay ninka taajirka ahay isagaa clearancekiiah isagaa gaadhigii daabulka wata isagaa bakhaarkii leh isagaa xamaalintii leh isagaa biibitooyinkii sharaabka laga cabaayey oomaar isagaa leh ninka adhiga diraana isagaa raacigii leh isagaa maxjarkii leh isagaa gaadhigii gelaye leh isagaa kasii raacaye mataqaana raacige markabka la saaray isagaa leh waa reerkooda dhinacigaal baan ku nidhi dee dadkii baktay maxaa lagu noolaanaya wuxuu yidhi dee qabar baa dhacay laysma aaminayo maanta nin waliba wixiisa isagaa dabada haysta kuwa iga dambeeyaa dowlade markaan anigu dowladnimada sugo kuwa iga dambeeyaa xuquuqdiina soo celin doona waxaanu filaysiinaya dee inuu soo celiya maanta ila dhulka waa nabade oo maartay wuu nagu aamini karaa dee salaxalade maanta ma cid baa boobaysa miyaan weligay booban 19 baan wax boobin anagu waxaa nagu hadhay waa 2,000 ee shaqaale ah ee xamaaliga ah reer somaliland ow marka laydin leeyahay barbaraaq haysataan waxa igu hadhay ee aan ku noolahay waa xamaalka gubtay weeye xamaalkii markan ma leeyahay ka kac soo inaad qarxiyo maaha markaa yaa yeelaya taa deegaankiisii baa laga dhammayn kari waayey maxay tahay batroolkii la sheegay sababtu waa maxay shacbiga habar jecel halkaa yaala waa gob laakiinse dowladdii wax u sheegi lahayd sidan oo kale ayaa dhalaan lagu galay qandaraas yaa la qaatay waxaan idiin sheegayaa in berbera duulaan gaara lagu yahay airportkii ugu weynaa baynu leenahay waxaa ka soo degaya 787 baa ka soo degi karta kuwait bay noogu caawisay terminalkii waa la dhisay maxamuud xasha ayaa wasaaradda duulista ahaa isaga xidhay balada waan idiin sheegayaa muxuu xidhay maxaad u xidhay maxamuud xaashow ilaa intaasoo milyan bay kuwait inoogu bixisay maxay diyaaradaheena waaweynaa yurub dadka ka imanaya maraykan toos bay iman lahayn berbera ay uga degi lahayn 737 baa ugu weyn waxa iminka halkan yimaada salax aleh oo waliba uu kala shaxaaday waa ogtihiin uu kala shaxaaday oo baashu break ay ku qabanayso oo idinka arkayda sida salax aleh ya Itoobiyaanka ay dadka leeyahay sakhiro baday maanta airportka laftiisu xitaa ma dhamaystirna war maxay airportkii berber ku xidhaya hal shaqaaliye ma jooge berbera saasa laga rabaa inuu inta yara shaqaale joogta waxa ku nool ee aan ka xaga bixin 10 kuna joogtada ah waa 2,000 iyo caruurtooda soo inay ka baxaan ma hada badeetana baritana salax ale shaqo kale la qabsado wallahi baan la yeelinta oo billahi baan la yeelinta oo tallahi baan la yeelin waan idin sheegaya reer Soomaaliland oo hadaba laba mid bay noqon ama dacaayadan raqiiska ah ee xukuumaddu wadaydu maqli ama allahumma ballaqtu imika weydii sheegnaan wixii halkaa ka dhacana ya xukuumadda ka mas'uula maxamuud xaashaana kow ah sallallahu alayhi silayan waxaan idin sheegayaa inamadiisii annagaa dhalay nin maanta halkaa ku talo xumoobay ma jiro waa kuwa ka baxay nasabnimaanu ku dhalay sallallahu alayhi waa kuwa iskaga baxay godoba laaliya godobay maanta ilma siilaayo leeyihiin ma jiro hadday ku og yihiin meesha sallallahu alayhi ya te way soo sallallahu alayhi waa qustilo halkaas iskaga tagay maxamuud xaashiye qayrkii iyo wax kala meesha walaaqanaya waa la ogyahay taa waxaan anigu ku soo gabagabeynaya wax weeye ama wasiiradii dhammaa ee golaha wasiirada ee ummadda maamulayay lama tusin xeerka waa la idin sheegayaa waxba projector inta la saaleeyay ayaa la taaga iimaankii bay naga xumaado in wala wasiir wax ka baqayeen la xiriirto waayo dawlad baan ahayn talo deen ayar saas u badhigi jiro oo jira hadla waa ka daray ninka ugu hadalka badan buu ahaa waligiina lama yiri ninka ugu sharafta badan uu ahaa Abdullaahi Darawal
ninka ugu su-aasha badanna uu ahaa iga waxaan idiin sheegaya haddaba iminkana waxaa la wadaa golahayagii baa lagu soo wadaa sidaa uu sheegay maxamed xafaarax qabile annagu waxaanu doonaynaa heshiiska dee xasan xaaji baa hoosta ka saxeexay qayba maxaa loo qarinayaa xasan sheekhan dee salla cali xamar jooga horta waa in la keenaa isaga laftiisii durba waxaa la bilaabay shalay baa la islaa keene waxaa la arkay in qoladii kulmiye laftoodu ay leeyihiin war hala dejiyo war berbera hala dejiyo war dadka waxaa loo sheego waxaa la yidhi kuwanaabay noogu daran waa guddi 11 oo la sameeyo Siciid ka mid ahaa waxaa la war naga tuura kulmiyahan baaba imtixaane iyagu kulmiyana ma jecla wadanina ma jecla cidna ma jecla anagu saddexda baan ku koobanay anagoo reer quraha dimuqraadiyadu waa halka gaarsiis anigu waxaan wadani ninkana waa kulmiye oo waliba madaxdiisa ah ninkana waa cud saddexdii Siciidna waa kulmiye guurtidu ha odayguna waa cud saddex iyagoo waa odaashii guurtida salaale saddexdii xisboorta waan ka midaysan anagu ma nihin ma yiraahda reer hebel baynu haddana murashax baanu leenahay murashax xaafadayada ah oo aanu dad isugu xigno oo la silciyey oo xukuumaddu ka mid tahay kuwa silciyey ayaanu haddana leenahay haddana maanaan odhan tolaahi maanaan odhan ilaa murashaxii baa saa lagu yeelaya waa dagaal toosa reer somaliland dagaalkaasu ama wuu dhici oo idinkaa laydin khaldi oo waana la geli sidiina loo geli jiray oo dabadeetana waxbaan iska celin ama ilaahay baa farajiyo reer somaliland waydu hadliyo ilaahay marka nin hadlay ma jiro cabdiraxmaan ciraa hadlay gudoomiyaha hadlay aad baan ugu mahadsan gudoomiye waayo isaga reer saaxiilade cid hadashoon reer saaxiil ahayn oo shacbiga hadashay oo tiri waar salla cale ila wanaga idin sheegnay waar kuulibaa naga haray shaqo kuuligiina waxa ku taala bahalka waa la kharijinaya wuuna qancin kari waayo wasiirkaygii waa taas ma nolol yeeloo nolol qanciyo hadda wax lala beeleynay sheerar ba xagga la dhigtay lacag ba xagga la dhigtay sidii ninkii ciise la sheegayay de salla cale ayaa la dhigtay halka waxaasaa la isleeyayaanay muuqan dam baa laga siinaa deetar waa la baxayaa waxaa la doonayaad moodaa xukuumaddeenanu inay ku tala gashay inaanu dal ka dambayn niman soo duulo shisheeye abaad mooddaa inay yihiin wallaahi bilaahi taala wax allaaliya wax inoo nooli waa ogtiino ma jiro waxaan ku soo gabagabaynayaa reer somaliland ka garnaqa ama arrinkaasu dee wuxuu noqon doonaa mid bad qaba ka hadashaan anigu shacbiga min boorame ilaa iyo laascaanood ilaa ceergaabaan anigu la hadlayaa ama waxay noqon doontaa waxaydu ka hadashaan salaadiinay suldaanka waxaa lagu xidhay talabaad waxaan ku soo gabagabaynayaa shirka wuu dhacayaa shirkan maxamuud xaasho wuu dhacayaa shirkan wuu dhacayaa halkaasaanu tegaynaa kun nin baanu nahay kalay kaaraha ugu weyn soo kaxayso wuu dhacayaa shirkaas waanaanu naqaanaayo dalka annagaa leh annagaa badbaadinay annagaa dagaalka ugu horreynay annagaa xoolaha ugu horreynay annagaa dowladnimada ugu horreynay waxaa hantiya lagu dhisayna waxay gaal ka dambeey may aragteen wixii lacagti mee lacagtaydi meeday salla caleh waa tii dabadeetana odaygu yidhi giibaan sidii baanu sifir ku nahay iimaan baanu leenahay laakiin waddaniyadina waynagu jirtaa ummadduna waana taqaanaa waxaan kaga baxayaa ku soo gabagabaynayaa dadkaana ha la soo daayo reer somalilandow waxay saarantay meel halisa waxba idiin qarin mayno wax allaaliyo waxaanu idiin qarinaynaa ma jirto meel halisay naga taagan tahay na kala gaadha xukuumaddaa na kala gaadha wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu